kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo shir wada tashi uga furmay magaalada Dhuusamareeb. dowladda dhexe shirka way ka maqan tahay. haddaba maxaa laga filan karaa falanqayn ayaanu idinka haynaa. suuqyada magaalooyinka Somaliland oo qiimaha qudaartu ay sare u kaceen. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilowna ee magaalada Dhuusamareeb xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya kuwaasi oo furitaanka shirka ka sheegay in ay ka wada xaajoon doonaan doorashada Soomaaliya iyo waliba xiriirka dowladda dhexe maadaama ay isdiidan yihiin dowladda dhexe qaar ka mida maamulada dalka ka jira. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor ayaa shirkan ku martigeliyay madaxweynayaasha Puntland, Hirshabelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Qoorqoor ayaa furitaankii shirkan ka sheegay in hadafku yahay in maamul goboleedyadu ay ka wada tashadaan hanaan ay doorasho xalaal ahi uga dhici karto Soomaaliya, isagoo sheegay in maamuladan kaligood aanay go'aan ka gaari karin doorashada. shirka Dhuusamareeb oo yimid kadib markii uu baaqday shirweynihii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Muqdisho la isugu yimaado, ayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in shirka Dhuusamareeb uu yahay shaqo loo qabanayo dowladda federaalka. Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo shirkan uu ahaa shirkii ugu horeeyay madaxda maamulada kala qayb galo tan iyo markii dib loo doortay, waxa uu isna sheegay in shirkani uu asal u yahay in la wada tashado oo taladaasina ay dowlad goboleedyadu qayb ka yihiin. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna sheegay in xasilooni Soomaaliya ka dhalata ay ku xiran tahay in dastuurka loo hoggaansamo. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa isna muujiyay rajo uu ka qabo in shirkan wax lagu farxo ay ka soo baxaan. shirkani waxa uu yimid 2 maalin kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in doorashadani ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay lagana fogaado in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin. sababtoo ah buu yiri muddo kordhintu waxay horseedi kartaa qalalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuur. haddaba shirkan muxuu soo kordhin karaa? maamul goboleedyaduna kaligood maxay samayn karaan? su'aalaha iyo kuwa kaleba waxaan weydiinayaa Maxamed Qaasin oo ka tirsan macadka Raas oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho haatan ku sugan magaalada Dhuusamareeb. maxamed qadka Skype-ka ayuu si toos ugu jiraa. maxamed, adigoo barnaamij ku soo dhawaanaya, maxaa kaaga baxay ee shirka ka furmay magaalada Dhuusamareeb? mas'aada aad u mahadsan tahay. shirka Dhuusamareeb maanta ka furmay runtii inuu jawi wanaagsan ku bilowday ayaa noo muuqata. madaxda maamul goboleedyaduna mataqaanaa si wanaagsan ay kulligood u wada hadleen. marka wixii laga filan karo khudbadahooda ay kuwada xuseed guud. marka inaysan talada keligood lahayn qaarkood xuseen, qaarkood Cabdicasiis Laftagareen oo kale wuxuu xusay wax lagu faraxsan yahay ay ka shaqeyn doonaan oo shara laga filan. Axmed Madoobe oo kale, Axmed Islaam wuxuu xusay in ay shaqaday qabanayaan ay mataqaana federaalku ay qayb ka yihiin oo aysan ay waxay gaar u leeyihiin jirin. marka jawigu guud ahaan inta noo muuqatay aad u sareeyay. waa gartay. marka qabashada shir aanu furitaankiisa iyo gogashiisaba lug ku lahayn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay ka dhigan tahay? ma waxaa la oran karaa madaxweynaha guuldaro ay u tahay shirkan aanu ku lugta lahayn ee Dhuusamareeb ka furmay? markii dhankaas laga fiiriyo runtii waa guuldaro. shirkii uu ku baaqay 5 bishan in Muqdisho la isugu yimaado ay baaqday. marka halkaas laga eego waa guuldaro. 6 bisha maamul goboleedyadu waa shireen, kadibna waxay ballameen 9 bisha oo Khamiistii in Dhuusamareeb la isugu yimaado. tii maamul goboleedyada in isugu yimaadana suura gashay. tii federaalku weli waxay u baahan tahay in la bisleeyo u baahan tahay. haddaan ku xasuusiyo 2 qodob ay maamul goboleedyadu yidhaaheen waa ka shiraynaa inay marka koowaad horta isugu yimaadaan Dhuusamareeb. qodobka labaad wuxuu ahaa inay diyaariyaan si degdega ama sida ugu dhaqsiyaha badan isugu arki lahaayeen maamul goboleedyada, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. marka ayaga laftirkooda waxaa moodaa inay qodobkaas maadaama shirkii hore baaqday inay mas-uuliyad iska saareen inay shirkaas kale ay suura geliyaan. ajendaha shirkooda ku jirta 2daas qodob baa ugu muhiimsanaa wixii ay isugu yimaadeen.
maxamed dhinaca galmudug waxay muujinaysaa inay dhexdhexaad ka tahay labada dhinac maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya marka madaxweyne qoorqoor ma u muuqan karaa mas'ala la oran karaa wuu isku keeni karaa labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dowladda isdiidan sida labada madaxweyne Dani Axmed Madoobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa isku keeni karaa laakiin waxay ku xiran tahay waxa ka soo baxa shirka ay leeyihiin haddii communique ama warmurtiyeed dowladda federaalka ay u aragto inuu xanafili ka soo baxana kulankaasi inuu dib u dhacay ekaanaysaa haddii ay waxba soo saarin ee u yeeraan oo yidhahaan shirkii waa furnay oo halkaas u dhimaanay waxaa codsanaynaa inaan isku nimaano ay yidhahaan ee codsigaas jiideenna waxaa laga yaabaa inay hawshu sidaas ka dhawaato marka hadba wadadii la qaaday ku xiran aan isleeyahay waa gartay marka madaxweynayaasha hadda meesha ku kulansan waxa ay sheegayaan in talada doorashada dalka ay tahay mid la wada leeyahay oo cid gooniya aanay lahayn marka gabagabada shirka maxaa la filayaa inay ka soo baxaan gabagabada shirka waxaa la filayaa horta inay mataqaanaa ka soo baxaan warmurtiyeedka soo baxaya horta mar walba wuxuu ama caqabad ku noqonaya ama fursad ku noqonaya in madaxda dowladgoboleedyada iyo madaxda federaalku ay isarkaan caqabadu ku noqonaa haddii dowladda federaalka ay xanaf ku aragto haddii ayagu waxa markan ku jira ay communiquega ku cabiraan ayadoo laga maqan yahana caqabadu ku noqonaya marka wax inay soo saaraan laftirkeeda su-aala ku jirto waxaa laleeyahay shirka hadda halkaan isugu yimaadin waxaa laga yaabaa inay madaxda federaalka cabsadaan aysan waxba soo saarin ra'yigaas waa jira haddii wax soo saaraanna kulli arrimaha doorashada awoodda saari doonaan maamul goboleedyada qaarkood waxay aaminsan yihiin in ay mataqaanaa sharciga doorashooyinka qaranka iyo in aan la gaari karin waxyaabaha ku qoran sharciga doorashooyinka qaranka la ansixiyey baarlamaanka federaalka ansixiyey madaxweynuhu ansixiyey saxiixay wuxuu ka kooban yahay 7 cutub 58 qodob iyo 33 page ma jiro wax kaalin ay dowlad goboleedyadu ku leeyihiin marka niman kaalintooda inay soo ceshaan rabaana waa u muuqdaa waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed qaasin oo ka tirsan macadka raas oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho haatanna qadka skype-ka ee ku jiray magaalada dhuusamareeb aad buu u mahadsan yahay maxamed suuqyada magaalooyinka hargeysa waxaa sare u kacay qiimaha qudaarta sare u kacan ayaa waxa uu salka ku hayaa ayax ku dul habsaday beeraha iyo weliba dhinaca Itoobiya qudaartii ka imaan jirtay oo u istaagtay rabshadaha ka jira wadanka Itoobiya wariyaha VOA magaalada hargeysa qadar maxamed cakule ayaa warbixintan inoo soo diray maalmihii ugu dambeeyay waxay soo tarayay dhibaatada dadka danyarta ay kala kulmayaan khudra la'aan weyn oo soo food saartay suuqyada kala duwan ee magaalooyinka Soomaaliland tusaale ahaan suuqyada khudaarta lagu iibiyo ee magaalada Hargeysa ayaa toddobaadkan ugu dambeeyay waxa cirkays ku shareeray qaar ka mid ah khudaarta noocyadeeda kala duwan sida basasha baradhada tamaandhada ama yaayada qofba sida uu yaqaano kaabajka iyo kuwa kale qaar ka mid ah haweenka danyarta ah ayaa ku tilmaamay in duruufaha dadka danyarta ah ee marka horeba xaaladooda nololeed ay liidatay ay haatan joojiyeen inay suuqyada ka soo iibsadaan wixii ay cuntada ku karsan lahaayeen kadib duruufaha dhaqaale oo saamixi waayay saameyn aad u badan oo culus bay ku yeeshay oo dadku aanay kari karahay matalan qofka shaqaalaha ama macalinka ama askariga oo meelaha hoose ka soo qabano mushaharkiisu waa milyan ama waa 700 ama 800 waxa loo dhiibaa gabadha 20,000 oo shilin masaariifa ay ku haysaa caruur aad u fara badan oo laga yaabo inay xitaa nus saac ka doonayaan awal kiilooga xooga 3 shilin bay siisan jirtay maanta 30,000 oo shilin baa laga siinaya kiilooga baradhada waxa laga siin jiray 4,000 oo shilin maanta 20,000 oo shilin baa la siinaya kiilooga basal waxay siisan jirtay oo caaway cashadoo kale ugu filaan karaya iyo deeqadada waxay siisanaysaa 5,000 oo shilin isaguna maanta waa 20,000 oo shilin 20keedii kun waxa deeq khasab ah in gurigeedii la joogto soo badhaadhicinba bari saacad ugu shubto oo ilmihiina waliba nus saac ka rabo markaas nus saacii ilmuhu doonayay ee suuqa lagaga kaga soo cunaya wax isna waxa saameynaysa qudaartii oo 2,000 shilin u dhiibaysa ilmaha yar waxba u jari mayso mas'uuliyiinta ururka khudradleyda ayaa ku tilmaamay dhibaatadani inay ka dhalatay ama ay tahay mid ay keentay beeralayda soo saarta khudaarta oo dhib weyn ugu geystay ayaxii ku degay sanadkan kaasi oo dhibtii ka dhalatay ay noqotay in aanay waxba soo go'in iyadoo taasina ay u sii raacday sida ay sheegeen dhibaatada keentay in khudaartii ka imanaysa waddanka Itoobiya ay isu taagtay rabshadaha xaggaasi ka dhacay toddobaadkiina dhaafay darteed qudaar la'aanta ka jirta Hargeysa waxa weeyaan ay tama fara badan ayaa ka go'an oo ay ka mid yihiin baradhada kaabashka iyo waliba kaararka
tamaandhada sababtuna waxay tahay ay u goday tamaandhadaasi oo maadaama ay tahay ugu daran in uu ayuxu ku habsaday beeraleydii dalka oo kadibna ay noqotay in halkaasi ayux dhibaato u gaarsiiyo suuqii labaad ee laga keeni lahaa tamaandhada oo ah dalka Itoobiya iyadana waxa ka taagan qalalaase iyo mudaharaado kadibna gaadiid ka soo baxaya ma jiraan dawladda Itoobiya taasina maadaama ay saa tahay waxa dhacay in ay sababto qudrad la'aanta ka taagan magaalada Hargeysa sida awgeedna suuqyadii qudaartu dhamaantood way haawanayaan dadkina waxay iibiyaan ma hayaan si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah aqoon-yahanka magaalada Hargeysa ayaa ku tilmaamaya in aanay bulshadu ku baraarugsanayn gaar ahaan beeralaydu aanay haysanin qalab aqoon iyo dhaqaale ku filan oo ay ku daboolaan baahida dhinaca khudaarta ee bulshada waxaan baan odhan karaa waxa uu sababa dhowr arrimood marka ugu horeysa inaga oo aan ka sii diyaar garoobin ama diyaarba u ahaynba in wax ay iman karaan dhibaato ay iman karto dhibaatooyinkaas oo dhowr noqon kara in waddankan ku tiirsanayn ee Itoobiya ay wax ka dhacaan ama isaga laftirkiisa abaara ku dhacaan in inaga laftirkeena abaara inagu dhacaan in hawlo kale ama afooyin kale ay yimaadaan arrimahaas oo dhan inagoon aan la skarayn bay waxaan yimaadeen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa ugu dambeyntiina shacabka waddanka Bosnia ayaa xusaya 25 guuradii ka soo wareegatay xasuuqii Srebrenica ee Serbiyiinta Bosnia ay ku xasuuqeen in ka badan 8,000 oo qof oo isugu jiray rag iyo wiilal yaryar oo ka soo jeeday muslimiinta Bosnia xasuuqaasi oo noqday kii ugu horeeyay ee ka dhacay Yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida ayaa xuska sanadkan loo ogolaaday inay ka qayb galaan dad aan badnayn sabab la xiriira ka hortagga faafitaanka cudurka COVID-19 xasuuqa muslimiinta Bosnia ayaa bilowday 11kii bishii Julaay ee sanadkii 1995 kadib markii magaalada Srebrenica qabsadeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka soo jeeday Serbiyiinta Bosnia uu watay General Ratko Mladic ayaa muslimiinta Bosnia u sheegay inaysan cabsan oo ammaan yihiin xilli uu bilaabay inuu dadka xasuuqo muddo 10 maalmood ayayna ku qaadatay inuu xasuuqo 8,000 oo muslimiina oo ay ku jireen wiilal yaryar xuska maanta loo sameeyo dadka la xasuuqay ayaa iyadoo la adeegsanayo muuqaalka tooska internetka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo amiirka Britain Prince Charles daawadayaal barnaamijkii qubanaha maantana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa gabi ahaanba intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascade iyo bahda qubanaha idila sida iyo nooli kulanta